soomaalida halkan degan ee reer Nairobi runtii aad iyo aad qaali igu tihiin waxaan rabaa mar labaad inaan idin mahad celiyo hadda ka horna waa idin la hadlay mar walbana waxaan jeclahay oo aan imaado halkan inaan idin la hadlo idin sheego xaaladda meesha dalku u marayo iyo waxa soo socda oo aan runtii aan haminayno inaan ka shaqeyno waxaa la idinku sheegaa inaad tihiin dad aad iyo aad u karti badan inaad tihiin dad runtii waddankan wax badan kusoo kordhiya horumarkiisa canshuurta bixiya oo intiina badan aad tihiin ganacsato arrintaasna haddii aan ogaa yaa mar walba markaan arko madaxweynaha Uhuru way xasuusiyaa wuxuu xasuusiyaa inaad tihiin dadka ugu fiican adduunka inaad tihiin dad aad u shaqaysta dad karti badan dad firfircoon dad baayac mushtarka iyo ganacsiga aad iyo aad ugu fiican dad bixiya canshuurta dalkan lagu wado mar walba aan arko way xasuusiyaa isaga kaliya ma aha marka Soomaali oo dhan meel kasta ay joogto madaxda isu keenta qaadna saas ay xasuusiyaan iyaga naftigooda oo waxa ugu dambeysay hadda markii aan ka imid Kampala Uganda madaxweynaha Museveni wuxuu ka hadlayay dadweynaha Soomaaliyeed ee degan Kampala iyo ganacsatadooda iyo waddanka waxay ku kordhiyeen muddo 10 daqiiqo ah iyo 15 daqiiqo in ku dhow iyuu ka hadlayay macnaha wanaaga iyo waxay dalkiisa ku soo kordhiyeen oo waliba ay haystaan ganacsatada ganacsi waaweyn oo ah petroleumka iyo trade iyo banking systemka xawaalada waxa ka sii horeysay shir bil ka hor aan ku tagay South Sudan oo madaxweynahoodana sidaas iyo si ka daran uu amaanay dadka Soomaaliyeed oo runtii dalkooda ka qaxay sida ay wax ugu kordhiyeen meesha ay degan yihiin iyo meesha ay ku nool yihiin waliba waxaa si yaab badnayd oo yaab lahayd maalintaasi oo la saxiixay maalintaasaan isugu tagnay heshiiskaas madaxweynaha iyo mucaaradkiisa ay isugu yimaadeen oo loo soo baxay oo loo feesteenayay waxaa soo baxay dad gaaraya ilaa 20,000 dadkii biyaha u qaybinayay oo biyaha siinayay waxay ahaayeen ganacsatada Soomaaliyeed oo isgaratay marka macnaheedu waxay tahay dadkii ganacsatada localka ahaa oo Suudaanta waa garan waayeen dawladoodii waa garan waayeen ganacsatadeenii Soomaalidii baa garatay macnaheedu waxay ku tusaysaa dad hore oo xadaarad fog inaan nahay oo wax garta inaan nahay ama abaal leh inaan nahay marka iyaga kaliya ma aha Zambia madaxweynaha Zambia sidaas oo kale South Africa sidaas oo kale iyo hadda waxaan ognahay inay Tanzania joogaan Soomaalida ganacsatada West Africa ay joogaan laakiin su'aasha la isweydiinayo waxay tahay war dadkan saan u firfircoon oo Ilaahay xayga ka dhigay oo yaqaan sida ganacsi iyo dhaqaale loo sameeyo dalkooda maxaa ka halaysan dalkooda maxay u dhisan waayeen oo waxa soo dhaqaale u gelin waayeen waa su'aal muhiim ah oo la isweydiiyo laakiin jawaabteeda waa yara soo koobaya jawaabteedu waxay tahay dadkaas maxaan ku raahdaa dalka markuu helo madax astaamaha soo socota leh markuu helo Soomaaliya muddo yar gudaheeda iyay ku soconaysaa meel sare ku gaaraysaa intaasoo arrimoodan soo wado markay isqabsato oo la xaqiijiyo Soomaaliya waa tagtay weliba hadee isma amaanayeen saansaantaasna waa jirtaa waxay tahay madax daacada oo honesty ah oo ummadda amaanada u hayaan siday tahay ugu maamula oo maxaan ku yiraahdaa aanan dhaqaalahaasi dadka laga soo aruuriyo ama wax yarka ah oo caalamku ay keenaan aanan si xun loogu takrifalin ama dad gaar ah aysan jaabka gashan macnaheedu waxay tahay marka haddii ay saas tahay oo la helo qof daacada waxaa loo baahan yahay ma la heli karaa qof aan qabiilista ahayn waa dhowr astaamood oo haddii la isgelgeliyo ay isku aado Soomaaliya waa hagaagtay
macnaheedu waxa weeye waxaad heshay qof daacada oo honesty ah ma la heli karaa marka qof aan qabiiliste ahayn marka oo dadkoo dhan u dhexeeya oo caadila oo haddii uu yahay madaxweyne ilaa madaxweyne macnihiisu waxay tahay waa numberka koowaad ee dalka weyn waa qof dadkoo dhan laga soo xushay waa 12 milyan iyo 15 milyan dad gaaraya laga soo xushay oo la yiri adiga noo dhaxeeya oo noo xaqsoon oo qofkaasi u qaatay sida tahay oo dadku u dhaxeeya oo aan isticmaalin kooxaysi oo aan isticmaalin qabiil haddii qofkaas la helo ma la heli karaa qof kartida ku darsada oo karti leh oo aan caajis ahayn oo soo jeeda oo maalin iyo habeenba shaqeeya oo walwal ka haya shaqada ummadda ay u dirsadeen inuu sidee tahay uga soo dhalaalo uga soo baxo haddii saddexdaas qof la helo qof akhlaaq leh oo diin leh oo jagada ama shaqada loo dhiibtay aanan abuse garaynin oo aan dadka ku dhibin oo aan si xun u isticmaalin oo adaab leh inuu yahay haddii afartaas la helo ma la heli karaa qof deggan oo aan talada ku degdegin oo ka fiirsada wax walba oo go'aanka saxa ka qaata waa dhici kartaa go'aanka inuu khaldamo laakiin aad uga fiirsada shantaas marka la helo haddii ma la heli karaa qof aqoon leh oo runtii hawsha waxay tahay fahamsan oo aqoonteedii u buuxdo uu leeyahay ma la heli karaa haddii lixdaas astaamood la helo qof kale ma la heli karaa qof waddani ah oo waddankiisa jecel oo dadkiisa jecel ma la heli karaa oo dadkiisa jecel ma la heli karaa ma aha waddanigu patriotigu ma aha inuu dal kale ku duulo hadduu xoog isbida ma aha waa dalkiisa inuu difaacdo oo ilaashado toddobadaas marka la helo qof geesinimadeeda ku darsada ma la heli karaa ku dhiirada waxa dhabta ah xitaa haddii ay qaraar tahay sidii tii aan ka qaadanay go'aankii khaliijka oo kale wax sahla ma ahay ma la heli karaa qof naxariis leh oo dadka saboolka ah dadka curyaamiinta ah dadka masaakiinta ah dadka agoonta ah maxaan ku idhaahdaa wax tari kara oo ka naxaaya ama u naxaaya tan ugu muhiimsan waxay tahay waxa la yidhahdo emotional intelligence waxay tahay inaad dadka dareenkooda akhrin karto oo aad sensitivity leedahay sensitive aad tahay oo aad garan karto waxa ka soo bixi kara qofka wuxuu yahay haddaad fiiriso dareenkiisa xaqiiqda jirto waxay tahay waa la soo laayay dhibaato badan baa dhacday dadku waa kala irdhoobi waxyaaba badan baa la rabaa marka in la ilaaliyo waxa noogu daran waxa weeye lacala qabyaaladoo kale yaa noogu daran marka in aad isha ku hayso go-aankaa qaadanayso maxay keeni kartaa ama maxay dhiba ay keeni kartaa waxaa intaas dheer sophistication qof leh oo ilbax ah oo ummadda aanan ceebeynin oo astaan qaran oo fiican leh oo maxaan ku idhahdaan meelo ku dhacdhacayn oo asturan ma la heli karaa intaas waxaa dheer oo muhiima qof qab leh oo maxaan ku idhaahdaa aan ajnabi isku dhiibeyn oo soomaalinimadiisa aaminsan oo og soomaali waxay ahaan jirtay doonayaan inuu soo celiyo qabkii soomaali ee lahaan jirtay tan muhiimka ah oo siyaasiyiinteenna inta badan ka wareertay waa runsheeg iyo ballanta qof ballan waxaa loo yaqaanaa siyaasi qof beenlowa oo munaafiq ah oo xariif ah oo laalaab badan siyaasi maaha siyaasigu waxa weeye qofka xalka sida saxa ku hela xitaa haddii xalka uu qaraar yahay u bareera xalkaas qof aan isbedbedel badnayn
oo wixii aad shalay ku ogeyd aad ugu soo noqonayso aad ugu imaanayso tan ugu muhiimsan waxay tahay legacy inuu qofkaasi aaminsan yahay inuu ka tago maxaan ku yiraahdaa wax la yiraahdo legacy ka taga oo lagu xasuusto oo 100 sano ama 50 sano ummadda u hari kara tan ugu dambaysa oo Soomaalida ay ku yartahay waa tanaasul malihin oo markii xaaladdu ay qaraaraato ay xumaato dhihi kara intii wax halaabi lahaayeen aniga sahlan ama haddii khilaaf u imaan karo isagu tanaasula intii dalku uu dhibaato iyo ciriiri uu geli lahaa intaas aan idin sheegay waxa weeye characteriska qofka leaderka uu leeyahay weey haddaba meesha waxa yaala waana doorateen waxaad noo doorateen intaas inaad naga heshaan aan sheegay marka farqiga u dhaxeeya dalalka aragteen oo burbursan oo fakhriga badan oo cudurka badan oo maxaan ku yiraahdaa qaxa leh oo dagaalka aan kala joogsiga lahayn uu ka socdo oo ilaahayna dhul uu siiyey qani ah iyo wadamo yar ah oo aan khayraad lahayn oo qani ah oo first world ah Singapore ama wadankan la yiraahdo Norway 6 biloodna waa baraf 6 biloodna waa baraf xigeen caad qorax lama arko hal xilli kaliya wax beertaan waxay dadkooda u kaydiyeen 300 sano soo socota adduunka hadduu ku xumaado 300 sano ka bacdi qofka dhalan doona wixii meel u dhigeen ka warramo 300 sano ka bacdi qofka dhalan doona noloshiisu waa guaranteed maxaa yeelay awooyaashii yaa ka shaqeeyay oo ma aha siyaasiyiintu ma aha waxay u nool yihiin maanta waxay u nool yihiin inay kuwa soo socda ay noloshooda dhisaan bacdamaa iyaga kuwii ka horreeyey ay noloshooda soo dhiseen waddankaasi oil ayuu leeyahay iska daa Singapore maxaa lagu tilmaami karaa Singapore waa hal magaalo oo haddee qani ah oo marka loo fiiriyo ka qanisan wadamo badan oo Afrikaan ah waxa u yaalo reserve-ka ah u yaala waana hal magaalo maxaa dalna saas u yahay cirka u maraya dalna dadkiisu ay cudur ay ugu baaba'ayaan iyo baahi iyo gaajo waxaa la oran karaa ma dadka kala fiican marka mise madaxda kala fiican waa su'aal loo baahan yahay isweydiiyo waa meesha rabina u soo noqdo dadkeena la amaanayo maalin walba oo leeyahay dadkiina waa dad fiican maxay dalkooda u dhisan waayeen marka waxa weeye dadka iyo leaderku waa isku xiran yihiin waxa la yiraahdaa leaderku waa muraayada dadka ay isku fiiriyaan leaderku wuxuu ka dhex yimaadaa dadka wax walba waa shacab iyo leader isla socda hoggaan iyo shacab isla socda hoggaanka marka waxaa laga rabaa kow dadkiisu inuu nabadda u horseedo kow waxaa laga rabo leaderka dalkiisa iyo dadkiisa inuu u horseedo nabad iyo nolol wax kale lagama rabo hoggaanka waana hal ku dhigeenna haddaan nahay nabad iyo nolol haddaba xaggee nabadda ka raadinaynaa marka nabadda ileen 30 sano aan soo burburinaynay meel walba adduunkan ka dhacnay waa isleenay dadkani waa kala irdhoobeen annagoo hal beel ah Soomaali la yiraahdo Soomaali waa hal beel xaggee ka raadinaa nabaddiina xaggee nooga luntay in la isweydiiyaa la rabaa nabaddu waxay nooga luntay dhexdeena ma aha Soomaali waxba isuma qabto Soomaali waa la isku diray dad shisheeya yaa isku diray Soomaali burburka Soomaaliya dibadda uga yimid khaasatan markii annaga Itoobiya aan dagaalnay
oo cid walba cidda kale ay ku abuurtay jabhado meeshaas way meesha Soomaaliya ku burburtay maxaana laga rabaa marka bacdama aan khibraddaas annaga aan leenahay oo dalkeeni dibadda laga burburiyey aan ognahay oo nin alla ninkii xanaaqaba uu aadayay dowladda shisheeye uu dhaqaale ka raadsanayo hub ma aqaan intaan halkan fadhida inta beerleyda ma aqaano laakiin anigu wax yar yaan beeraha ka aqaanaa wax yar yaan ka aqaanaa beeraha beerta biyaha waxaa looga soo dayaa kanaalka marka kanaalka haddii uu soo fataho biyaha beertu waa baaba'aysaa haddii biyihii o dhan kusoo fatahmaan marka waxaa la rabaa si beerta aysan u dhibaatoon in kanaalka laga xiro biyaha haddaad tiraahda marka kanaalku ha socdo biyaha waxaan ka dhurayaa beerta weligaa allah waa dhuraysaa beerta biyaha ka dhuraysaa marka waa inaad horta kanaalka xirto ka bacdina biyaha ka dhurto ama uu qalalo marka Soomaaliya nabadeeda waa inaad ka soo xirto meeshii burburku ka soo bilowday dad badan isweydiinaya war maxaa Itoobiya loola heshiiyey waa kanaalkii biyaha ka soo yaa nabad rabin Itoobiya nabadeen rabtaa annagana nabadaan rabnaa dadka aan nabadda rabin marka waa dadka Soomaaliya godkii 30 sano ay ku jirtay inay ku jirto rabaa waxyaabaha aad aragteen oo tripartite-ka ah waxay tahay in geeska Afrika nabad lagu wada noolaado faragelin dambe Soomaaliya in aan noola imaanin oo wax alla wixii aan kala faa'iideysan karaan kala faa'iideysano ilaa muddo dheer ayaan si dhibayn oo jaajuusiin noo soo dirayeen oo nagu dhex jira marka jaajuusiintii inaan shaqo la'aan ku ridno soo maaha annagana aan raahno wax dhankeena idinkaga imaanaya ma laha aan wada noolaanno marka idinkana noolaada annagana noolaanno maxaan ku wada noolaanaynaa marka waxaan ku wada noolaanaynaa waxaan annaga aan ku fiicanna inaan u geenno oo ganacsiga ah inaan isku furno ganacsiga dadkeenna ganacsatada ah ay helaan suuqa ay waxooda geystaan si ay dhaqaalahooda iyo ganacsigooda u kobco in labada dad oo dariska ah waxay ka kala faa'iideysan karaan inay kala faa'iideystaan Itoobiya iyo Soomaaliya kaliya maaha ilaa Eritrea xitaa waa gaarnay Eritrea waxaan ku gaarnay Eritrea waxa weeye waa dal runtii aan wax badan ku leenahay oo noo ogsoon inaan wax badan ku leenahay laga bilaabo 60kii ilaa maalinta iyaga xorriyadda qaadanayeen waxaa ku socday dhaqaale Soomaali ee leedahay taxpayerska dadka canshuurahooda in la hubeeyo in dhaqaale la siiyo si ay u helaan xorriyadooda bini aadamku isku mid ma aha dad badan wax loo taraa jira oo annagu haddii dee 60mayadii iyo 70mayadii intii dowladda Soomaaliya xoog lahayd wadamo badan yaan wax ka horeen laakiin waxba nooma oga laakiin madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki wuu aaminsan yahay haddaysan Soomaali jirin inuusan xorriyad lahayn oo wuxuu nagu yiri aniga wafdigeen dadkiisu wuxuu u sheegaa in xorriyadooda ay dhamaystirnayn inta Soomaaliya ay dhibaato ku dhex jirto ama ay qaybsan tahay wuxuuna diyaar u yahay inuu abaalkii gudo marka Soomaaliya inaan rabno abaalkii iska gud marka meeshaas way meesha saddexda qaybood uu ka soo galay marka ninaan abaal ku leenahay oo Soomaali abaal ku leedahay ogsoon inaan abaal ku leenahay iyo Prime Ministerka Abiy oo leader cusub ah
oo doonaya geeska Afrika afkiisana iga yiri wax alla wixii aan haysano waxaan ku gadnay hub ma doonayno hub kale inaan iibsano meeshaan kaara ka iibsan lahayn waxaan ka iibsanaynaa tractor cagaf waxaan doonaynaa buu yiri dadkeena inaan u furno ganacsiga dhaqaalaha sida ay tahay hadda xirxirnaashahana horumar iyo barwaaqo dadkiis kuma gaarayaan marka dadkiis waxay barwaaqo ku gaarayaan ganacsatadeenaan u dirno oo ay baraan in la wada ganacsado la wada noolaado meeshaan u soconno waxay tahay Soomaaliya oo nabad hesha yaan u soconnaa Soomaaliya oo barwaaqo u soconnaa Soomaaliya oo noqota wadamada aan sheegay oo horumartay yaan u soconnaa Soomaaliya oo aan u kala qaybsanayn qabiilo yaan u soconnaa Soomaaliya oo nidaam iyo dawlad fiican heshay iyo sharci iyo kala dambeyn yaan u soconnaa waxaan u soconnaa Soomaaliya oo sharaf leh yaan u soconnaa ninka aan sharafta rabin muxuu rabaa marka ninka aan sharafta rabin wuxuu rabaa maanta kaliya rabaa laakiin annaga waxaan u soconnaa biri iyo 100 sano dambe yaan u soconnaa qofka maanta u socdo wuxuu rabaa luf wuxuu rabaa mashruuc 30 sano lagu soo jiray qofna wax ma tarin shacab weynii Soomaaliyeed wax ma tarin dalkiina wax ma tarin sumcadeena wax ma tarin marka majidkii aan ognahay aan ku fashilinay lagu wada fashilmay miyaan ku soconaynaa marka diyaar waxaan u nahay inaan jidkaas bedelno jid fiican inaan bilowno Soomaali waa dad fiican Soomaali sidaasi madaxdaas adduunka ay u sheegeen yaa dhab ah shakhsi dad fiican ayaad u tihiin laakiin jamac waa la isku keen diray been baa la idin sheegay waxaad tihiin qabiilaa la yiri qabiilo ma tihiin Soomaali waa hal qabiil oo Ilaahay badiyay oo noqday aa'ilo families noqday marka ma familada noqonay yaa dib noo keenay marka ilaan ummadii 100 luqadood ku hadlaayay oo kala duwanaa oo kala diinta ah waas wataane waa wada nool yihiin oo ah qaarkood waliba hadda annaga amsom noo soo diray oo naga difaacaya shabaabka waa ummad aan islahayn oo aan isku luqad ahayn annaga nagu kala dhex jiraan marka oo isku dad ah waxaasna waxa weeye waa kala maxaan ku raahdaa disconnection wax la yiraahdo u dhaxeeya hoggaanka iyo shacabka marka haddii shacabka dadkii aan idin sheegay siyaasiyiintii oo ayaan dhaweyd aan ku iri waa xiraaqsan yihiin oo qofka hadduu xanaaq wax walba iska leeyahay marka qofka hadduu xanaaqo wax walba iska leeyahay haddee waxay cagaha ku soo maxaa qaateen qabiil waa shaqayn waay koox waa shaqayn weyday marka waxa weeye inaan u sheegno shacabka Soomaaliyeed inuu majuur noqdo inuu bislaaday muddo dheer in loo sheegaya been loo sheegaya beentiina ay keentay dad badan oo qaxooti ah dad badan oo dhintay dad badan oo badaha ku baaba'ay dad badan oo maxaan ku raahdaa diaspora jira dad badan oo gudihii cudurro iyo biyo la'aan ama biyo aan fiicnayn oo aan caafimaad ahayn waxbarasho la'aan ay ku haysato wax kalena ma aha waa beentii loo sheegayo lagu kala qaybinayo ummadda haddii ummad la kala qaybiyana awooddeedii waa isdhintay marka inaan u sheegno dadkaas siyaasiyiinta caraysan waqtigiina waa dhammaaday ayaama hore waxay wadeen inay yiraahdaan dawladdu waa ku fashilantay amniga dalkii waa la qabsaday hadda taas waa shaqayn weyn hadda waxay yiraahdeen financial management systemkii dhaqaalaha waa fashilmay
dad badan